السلام عليكم وولالكين إسماعيل أبو زيد سيدا aan ka warqabno waxaa jiro dhibaatooyin fara badan oo dalka Soomaaliya ku habsaday gaar ahaan magaalada Qardho ayaa hadda waxaa soo fod saaray xaalad aad iyo aad u adag daadad ayaa qaaday dadkii iyo hantidoodii dad fara badan ayaa ku waxyeeloobay waa wax yaab leh waa wadankiini dhibaatooyinkan hadda ku soo kordhay cimilada ma keentay ma garanayo laakiin waxay ahaataba dadkii Soomaaliyeed dhibaatooyin badan ayaa ku habsaday marka fadlan waxaan idinka codsanayaa waxaan idinka baryayaa in aad bisha Ramadaanka barakadeeda aad uga qayb qaadatiin dadaalkaas waa idin soo sheegi doonaa qaabka wax lagu aroorin doono balse hadda waxaan la qaybsanayaa xanuunka dadka Soomaaliyeed oo waxaas ku qayb ku waxyeeloobay gaar ahaan bulshada reer Qardho ilaa reer Puntland walaalihiin waa idin garab taaganahay meel kasto sida aad noo garab istaagteen idinkaba meel kasto markii oo dhibaatada ka jirta Beledweyne waxaan xasuustaa dad fara badan inay arintaas ku istaageen gawaari fara badan ka timid dhankaas sida Soomaalida dhinacyadeeda dhanba uga wada imaaday ilaa iyo Kenya ilaa iyo gobol walba ilaa iyo Galmudug dhinac walba waa laga yimid Muqdisho marka waxaan jeclaan lahaa Nairobi iyo Ohio wax walba inaan sidoo kale si la mid ah isugu tagno Qardhana aanan la dayicin dadka meesha joogana oo masaakiinta oo Soomaalida oo ku dhaawacmay ama ku rafaaday ama ku dhaxyeeloobay maxoolooda ku kubeen in aan u wada gurmanaa waa bil Ramadaan waa wixii aan qabsanaa waa wax anaga aakhira noo jira waa idin baryayaa walaalihiin isla sheer gareeya hal